asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ninkii muslimka ah ee reer galbeedka kun sanno ugu horeeyay aragtida saynis ee noolaha. saynisyahankan ku dhashay magaalada Britain ee lagu magacaabi jiray Charles Darwin wuxuu helay aragtida saynis ee ku saabsan noolaha adduunka. fikradiisana waxay ka mid tahay kuwa maanta uu ku tiirsan yahay sayniska casriga laga soo bilaabo muddo dheer ka hor. waa la sii horumarinaya aragtiyaha ku qotoma asalka nolosha dadka iyo xayawaanada adduunka. buuggu Darwin qoray sanadkii 1859 ayuu ku qeexay aragtidiisa dhinaca sayniska ee abuurka noolaha, wuxuuna sheegay inuu muuqaalka noolaha marba mar ka dambeysa isbedelayo, isagoo u faahfaahinaya sida ay u kala duwanaadeen noolayaasha kasoo farcama noolaha. laakiin waxay u muuqataa in taariikhda sayniska noolaha ay qudheeda leedahay awoodo oo way ka soo farcantay marka la eego dunida islaamka. xulashada dabiiciga qiyaastii 1000 sano ka hor markii uu fikradiisa soo bandhigay Charles Darwin, waxaa jiray saynisyahan muslim ah oo ku noolaa dalka Ciraaq kaasoo lagu magacaabi jiray Al-Jahiz. wuxuu xilligaas buug ka qoray sidii uu muuqaalka noolaha isku bedelay, habkaasoo ku magacaabay xulashada dabiici ah. magaciisa dhabta ah wuxuu ahaa Abu Cusmaan Amri Bahri Al-Kanani Al-Basri, laakiin taariikhdii waxay ku xasuustaa maanaystihii ahayd Al-Jahiz oo micnaheedu yahay qofka ay indhihiisu muuqdaan, kuwaasoo bixi raba. saynisyahan dalbaday in la dilo boqor muslim ah oo noqday ninkii ugu taajirsanayay ee soo maray dunida. ma aha magac qurux badan oo qof lagu naanayso, laakiin Al-Jahiz caanimadiisa waxay ku nooshahay buuggiisa cajiibka ah oo ku magac baxay Kitaab al-Xayawaan ama buugga xayawaanka. wuxuu magaalada Basra oo ku taalla koonfurta Ciraaq ku dhashay sanadku markuu ahaa AD 776 oo taariikhda xilligaa la isticmaali jiray. xilliguu dhashay waxay ahayd markii Ciraaq iyo meelaha u dhow ay ka soo ifixeen fikrado lagu kuurgalayay cilmiga ku saabsanaa nolosha bini'aadamka. waxay ahayd markii uu heerka sare taagnaa xukunkii Cabbaasiyiinta. ereyo cilmiyeed oo laga soo turjumay luuqadda Giriigga ayaa laga dhigay Carabi, waxaana magaalada Basra ka bilowday doodo waaweyn oo salka ku hayay dhinacyada diinta, sayniska iyo taariikhda. taasi waxay arrimo badan u bidhaanisay Al-Jahiz. markii dambe la yimid fikrado isku toosan xoogo kadib, Shiinaha ayaa ganacsiga warqadaha gaarsiiyey Ciraaq, waxayna arrintaas sii xoojisay sii faafinta fikradaha sayniska. Al-Jahiz oo da'yaraana wuxuu durba bilaabay inuu qoro mawduucyo kala duwan. waxyaabihii uu danaynayay waxaa ka mid ahaa culuumta sayniska, juqraafiga iyo naxwaha carabiga. waxaa la rumaysan yahay inuu soo saaray 200 oo buug intii uu noolaa, laakiin 3 meelood oo meelba meel ka mid tahay ayaa keliya badbaadiyay buugaagtiisa oo ilaa hadda nala soo gaaray. markii uu Charles Darwin geeriyooday sanadkii 1882, Britain waxay ku sharaftay in lagu aaso qabuuraha Westminster Abbey, halkaasoo ay ku aasan yihiin dadka caanka ee qaranka soo maray. buugga xayawaanka buuggan oo noqday shaqsigii ugu caansanayay ee uu qabtay Al-Jahiz wuxuu uga sheekeeyey noloshaasi ilaa 350 xayawaan, kuwaasoo waliba ku qeexay fikrado saynis oo toos u taabanaya fikradihii markii dambe shaaca ka qaaday Darwin. xayawaanadu waxay dhibaato badan ka maraan sida ay u sii noolaan lahaayeen, gaar ahaan inay ka badbaadaan inay xayawaano kale cunto u noqdaan, sidoo kalena ay helaan wax ay quutaan. sidaas ayuu Al-Jahiz ku qoray buuggiisa. waxa kale oo uu ku yiri arrimo dhinaca deegaanka la xiriiraya ay noolayaasha ugu horreeyda inay yeeshaan xeelado ay ku xaqiijinayaan sida ay u sii noolaan lahaayeen, kuwaas oo marka dambe weji kale u sii yeelaya. wuu sii waday oo wuxuu yiri xayawaanada ka badbaaday in la cuno waxay guulo ka sii gaaraan dabeecadaha iyo xeeladaha cusub ee ay ku yeeshaan duruufta awgeed. waxaa caad ka saarnayd Al-Jahiz in noolayaasha adduunka ay mar walba si joogta ah ugu jireen hardaan ay ku doonayaan sida ay muddo kale u sii noolaan lahaayeen. fikradaha Al-Jahiz waxay saameyn ku yeesheen saynisyahankii la odhan jiray ee muslimka ahaa, kuwaasoo isaga dambeeyey. waxaa hawshaasi sii tixraacay saynisyahanada kale ah Al-Farabi iyo Al-Arabi Al-Biruni iyo Ibn Khaldun. Muhammad Iqbaal oo ahaa aqoonyahan u dhashay dalka Bakistan, magaciisa sida weyn lagu yaqaanay uu yahay Allaama Iqbaal, ayaa buugaag u qoray sanadkii 1930 ku faahfaahinaya shaqadii muhiimada ahayd ee uu qabtay Al-Jahiz. wuxuu sheegay in Al-Jahiz uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee tooshka ku ifiyey xaqiiqda ku saabsan in bini'aadanka iyo noolayaasha kale muuqaalkooda isu bedbedelo hadba sida ay isu bedelayaan deegaanada ay ku nool yihiin.
Darwin wuxuu gartay in shimbiraha ay afkoodu kala duwan yihiin, sida ay muslimiinta uga qayb qaataan aragtida saynis ee la xiriira abuurka noolaha. Wax qarsoon kama ahayn Yurub qarnigii 19aad. Xaqiiqda saynisyahankani ay isku waqtiga noolaayeen Charles Darwin, ee isagana lagu magacaabi jiray William Draper, ayaa sanadkii 1878 sayniska noolaha ay mahadeen. Hase yeeshee, wax caddayn ah looma hayo in Darwin uu aragtidiisa kasoo minguuriyay Aljahiis iyo inuu xitaa fahmi jiray luqadda Carabiga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.